السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتين ميلاد joogtaan baa idin salaamayaa subax wanaagsan baan idin leeyahay ama duhur wanaagsan ama hameyn wanaagsan dhammaantiin waxay idiin tahayba dhammaantiin Soomaali Maxamed waa idin salaamayaa meelaad joogtaan baa waa uma khaalid waa YouTube uma khaalid dhammaantiin walaalayaal waa idin salaamayaa Allah idin salaameeyo duuniya aakhiraba labadan bari maana soo gelino waxa weeye waqti rabadaan oo bishii xajka maanta ay dhowr tahay baan ku jirnay alxamdulillaah wa shukru lillaah maana soo gelin sababtay taa waan soomanay waana aan soomanaa hadii saasan u soo geli waayay dhammaantiin walaalayaal waxaan idin leeyahay ilaahay caafimaad hayna siiyo nabadgelyo taama saasan ayaan u soo geli waayay walaalayaal iga raali ahada waxa weeye warkaynu kala qaadanaa adinkuna warkaygaad qaadataan anna warkiinaan qaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo dambi dhaafo wixii dambi Allah ina ka cafiyo waa maalin ilaahay maalmaha u jecel yahay ku jirta sababtoo taa waxa weeye waa xajkii 10kii xajka weeye ilaahay inoo dambi dhaafo dambigeena dambi waarkeen bah dhaafo walaalayaal dhamaanteen ilaahayna hayna cafiyo caafimaad baan la weydiisanay waxaan ku hadlaynana ilaahay ka dhigo wax raali ilaahay ka yahay Allah wuxuu raali ka yahay Allah ka dhigo sababta waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye afka qofka ayaa la xukmaa uurkiisa iyo afkiisa ayaa la xukmaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa wax dambi ah oo dambi nooga yimaado ilaahay inuu naga soo yeersiin ilaahay idankiisa adduunku waa qadaa aadamuhu waa iska qadaa meerana ilaahay qadaaga iyaga kii aan la xukmin Allah ka dhigo ilaahay idankiisa bismillaah soonka iyo salaadana Allah ina ka aqbalo meelan joognaba dhamaanteen ilaahay inoo dambi dhaafo adduuniya aakhiraba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo 10kaas bari oo soonka ah maalinta sagaalaadka dadku aktarkooda ay soomaan maalinta sagaalaadka la taagan yahay carafo ayaa dadku soomaa laakiin qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala hada khayrkiisa raba inuu siyaadsadana 10 soomaa oo 10 bari buu soomaa marka ilaahay inoo dambi dhaafo walaalayaal meelan joognaba dhammaantiin intii sooman iyo intaan soomanayn ba ilaahay subxaanahu wa tacaala dambigeena dambi waarkeen bah dhaaf intiina ka xanuunsan oo Soomaali Maxamed xanuunsan iyo inta muslimiintaba ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad saraaca Allah siiyo risq waasac oo dhamaanin ilaahay na siiyo nabadgelyo taama oo dhamaanin ilaahay na siiyo ilaah waxaan ka baryaynaa wadankeeni iyo wadanka islaamka oo dhibaato ka socota ilaahay inuu qaboojiyo oo muxuu ahayd masaa'ibta adduunka gees mariyo ilaahay idankiisa masaa'ibaha dunida ilaahay wadankeena ha gees mariyo dhibaatada adduunka iska badatay dhibaatadii colaadiba iska badatay dhaciiba iska batay dagaalkiiba iska batay dulumkiiba iska batay ilaahay intaas bahayna gees mariyo asaga raxmaane inta hadaan uga soo gudbo waxa weeye maantay waxa weeye waa maalin ilaahay subxaanahu maalmaha uu jecel yahay oo raaliga ka yahay kamida sababtoo taa waa 10kii carafaynu ku jirnaa waxa weeye mar walba oo waxa weeye ilaaha subxaanahu qaadir inaad xustid ama 10kan ha ahaato ama 10 kalaba ha ahaato ama waqtigaba ha ahaatee waxa weeye mar walba ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad u noqotid oo ilaahay subxaanahu xustid oo ayaamahaaga aad ka wax ka siisid Allahii ku abuurtay sababtoo taa inta wax baynu cunaa inta wax baynu cabnaa adduunkan waxa weeye baashaalkaasaynu ku jirnaa Allah subxaanahu waxaad ku leedahay intaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo jirsata ayuu ku soo jirsadaa marka waxa weeye mar walba waxa la qaataa inaynu isku bogaadino cabsida alle subxaanallah adduunka waxa weeye intee baynu wax soo cunay intee baynu soo ciyaarnay intee baan soo baashaalnay intee baan adduunku soo noolayn war waxayna ka horeeyay meelan laga dhimanayn meelan laga dheeraanin meelan laga gaboobayn meelan wax laga waayin meel aan adduunkan uusan gaari karin dhibic kamid ah uusan gaari karin marka waxa weeye markii adduunka nolosheena markii laba meelood loo qaybiyo marka inta ugu badan 4 iyo bar waa inaynu aakhiradeena siinaa barkaas kale oo ka sii dhimana waa inaynu adduunkeena siinaa sababta waxa weeye meel aan lagaba tagaynin inaad u shaqaysatid taas u baahan meel aan laga dheeraanayn inaad u shaqaysatid taas u baahan
meelaan laga shaqaysanayn inaa u shaqaysatidna taasaa u baahan meelaan laga cibaadaysanayn inaa u shaqaysatid taasaa u baahan meelaan laga gaboobayn inaad u shaqaysatid taasaa u baahan meelaan dulmi ka jirin oo laysdulmiyayn inaa u shaqaysatid taasaa u baahan sidaad uga qaybgeli lahayd aad u ruculaysid ood u shaqaysatid taasaa u baahan Soomaaliya marka waxa weeye tan waxaa laga baqaa oon baa laga baqaa oo roob la'aan baa laga baqaa oo gaajaa laga baqaa oo colaad baa laga baqaa oo dilniin baa laga baqaa oo wax la'aan baa laga baqaa intaasba meelaan laga baqayn baa loo shaqaystaa intaasba meelaan laga baqayn ayaa loo shaqaystaa walaalayaal dhammaantiin ilaahay raalli ha idinka noqdo innagoo dhanna ilaahay raalli ha idinka noqdo aynu isku gubaabin waxa wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay dagaal waxba ma taro colaad waxba ma tarto masaa'ib laysu geystaa waxba ma tarto dhibaato laysu geystaana waxba ma tarto ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahay ayaa walaalayaal ayaa loo tartamaa tartanka aad maqasheen oo la tartamaa waa kan aakhiro loo tartamo maanta maxaan qabsaday maxaan maanta samaystay maxaan maanta taa inaynu u tartanno wey inaan dagaal u tartanno inaan qabiil u tartanno inaan dhibaato u tartanno inaan socolaadin u tartanno inaanu siyaasad iyo masaa'ib iyo adduunyo iyo waxyaalo aan ilaahay raalli ka ahayn u tartanno walaalayaal taa waa inu ku dembi waxaa ka wanaagsan innagoo ilaahay dartiisa u tartanno maanta maxaan qabsaday maanta maxaan samaystay maanta maxaan la baxay maanta maxaan waxaystay intaas inaynu u tartanno ayaa layna ka rabaa walaalayaal xooggeena inuusan noqon xooggii col lagu cayrshay baan rabaa ayaan jeclahay walaalayaal dhammaanteenba ilaahay inoo dembi dhaafo dembigeena dembi waaridkeenba ha dhaafo walaalayaal waad aragteen adduunkan aayatiin hadduu leeyahay dad horaa ka foosi lahaa dad hore ayaa ka foosi lahaa oo dhihi lahaa war waa ka foosnay adduunkaanan ka khalaas weeyo waa ka dharagnaa adduunkan lama arag qof yiri adduunka waa ka dhargoo meel fariistay ninka adduunka ugu taajirsan weli ruclu ku jiraa orod buu ku jiraa dhammaanaynin kan ugu caruur badan oo adduunka ugu caruur badan weli ruclu ku jiraa caruur buu raadinayaa adduunka marka waxa weeye walaalayaal dabadiisa daba la qabsada male waxaasoo daba la qabsada male ma maqli jirteen daba la qabsada male u dhowow ilaahigii ku abuurtay subxaana wa tacaala asagaa ka wanaagsan adduunka waxaan koonkan la abuuray oo dhan innagu dad masaakiinaha nahay dad masaakiina oo diintu ku soo gaartay qoraal ku soo gaartay baynu nahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam lama ayna kulmin asxaabteennina lama ayna kulmin laakiin waxaynu nahay dad risaalo soo gaartay baana haddii dadka risaalada soo gaartay aad siday risaaladaadu ahayd aad ugu dhagtid ilaahay subxaana wa tacaala ogow inta uu dembi dhaafay baad ka kow tahay marka walaalayaal maalintaas khayr kale aynu u dadaalno inaynu ilaahay subxaana wa tacaala biri la kulankiisa nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam la kulankiisa inaan xawlkiisa ka cabno waa u baahannahay masaakiin aan xoog lahayn oo tabaro lahayn baana awoodda allah iskale aynagu ma lihin aynu intaa u tartanno walaalayaal oogadeenaan xuntaa oo masaakiinta oo muxuu hayto aan waxba awoodin dab iyo kulayl uma adkaysan karto ogow inaadan miyir doorsanayn markii lagu gubahayo haddaad cadaabta gashid ogow inaan waxba kaadhi sida aad hadda hebelow u tahay aad xaaway u tahay ama cismaana u tahay unbaad sidaasaad baad cadaabta ku galaysaa haddaadan u shaqaysanin sida aad hebelow u tahay ayaad cadaabta ku galaysaa jirkaanu iyo naftaanu iyo hawaawigan adduunku waxay kuu horseedaysaa inay jahanabo kuu horseedo hawadan adduunka dhaldhalaalkan adduunka waxaan aynu aragno waxay kuu horseedaysaa inay adduunka aakhirada kugu ciqaabto ayay kuu wadaa ka hor istaag naftaada xukun yay ku xukumin iyadu naftaadu iyadu yay ku xukumin walaale adigu xukun ina adigu xukuntid isku day yay ku xukumin adiga hadday adiga naftaadu ku xukunto oo hawaawigeeda kuu jiidato ogow inay meel xun kaa riday oo ku halaysay ogow birina ay ku dhihi doonto ilaahu anigaa beri ka ah inaana anigu shaydaankaas oo ku jiitay oo ku kaxaystay ogow inuu ku leeyahay anigu beri baan ilaahow ka ahay qofkan wuxuu sameeyay inuu ku dhahayo ogow
inaad biri adiga aad dhinacaaga muxuu hayta dabku ku shidmi doono haddaadan hadeertan ka tabaabushaysan sababtay taa waxa weeye intaad adduunka joogtid ayaad shaqaysan kartaa intaad caafimaadka qabtid baad shaqaysan kartaa inta xiskaagu iyo maankaagu jooga ayaad shaqaysan kartaa ilaahay dartiis aad wax u qabsan kartaa laakiin haddii aad adduunkaan iyo hawaawiga adduunkaan uu ku jiito oo adduunkaan kugu licibo intuu adiga kugu licibi lahaa adigu ku licib intuu adduunkaan asagu kugu licibi lahaa oo kugu ciyaari lahaa oo jahanabo kuu jiidi lahaa cadaabta adigu ku licib oo adigu ku ciyaar yuusa ku jiidanin adiga walaala adduunku waa hawaawi badan yahay waa dhibaato badan yahay habba waxbaa iskaa tusaya sababtay taa shaydaan iyo naf daalnimada ayaa lagugu xiriirshay naf daalnimada iyo shaydaan ayaa lagugu xiriiriyey habba waxbuu iskaa tusayaa habba derbi buu kugu dhufanayaa habba qof buu kugu dhufanayaa habba naftaadaa kula dagaalamaysa sababtay qof baa shahiid kugula jira intuu shahiid marka naftaada ay kula geli lahayd adigu shahiid la gal naf yahay daalnimadaa aniga haygu dirindhe adduunkaan haygu dirindhe ciqaabtaa adduunkaan ciqaabtaa haygu dirindhe anigu waxaan ahay qof islaam oo matal maxameda ilaahay subxaana watacaalaana bilaash adduunkaan iima keeni iska cayaar ima dhihin dadka ku boodbood ima dhihin qabiil sheega ima dhihin xoog u yeelo dadka ima dhihin dagaal iyo masaa'ib dadka ku dhex abuur ima dhihinin ilaahay subxaana watacaala wuxuu ii noolaysiiyey oo naftaydan baan ku iryartaa jirkaygaan hilibkaygaan soconayo oo ugu afuufay inaan ilaahay caabudo oo allah subxaana watacaala aan ilaahay subxaana watacaala dartiis u noolahay inaanaad dartaada iyo hawaawigaaga adduunka aana u noolayn walaalayaal naftaada la xisaabta la dagaalan naftaada markaad naftaada meel dhigtid ayaad adduunkana la dagaalami kartaa laakiin inta naftaada ku wadato oo habba meel kuu jiidanayso wallaahi baan ku dhaartay inaadan waxba aadan qabsan karin sababtay taa iyadu hawaawigeeda iyo danaheeda ayay kuu wadataa walaalayaal ilaahay subxaana ha inoo dembi dhaafo allaha qaadir raxmaana ha inoo dembi dhaafo waxaan jeclahay dadka soomaaliyeed inay kulligood fiican yihiin inay kulligood alla ka baqaan inay kulligood baan ku iri ilaahay subxaana watacaala u qashuucaan waxaan jeclahay ilaahay ilmaheena inuu dhammaanteen meelaan joognaba ilmaha inoo xafido waaradka ay wixii dhintayna allah u naxariisto waxa noolna ilaahay inuu inoo caafiyo ayaan jeclahay ma jecla anigu inaan kaligay allaha subxaana haddaan baryayo waxaan jeclay inaan dadkaygoo dhanna u baryo hameenkii markaan seexanayo dadkoo dhan baan alla u baryaa markaan soo toosana dadkoo dhan baan alla u baryaa ilaahna waa igu ogya ilaaha hortiisa aan taaganahay oo maalinta qiyaame aan muxuu hayto afkayga aana ka hadlaynin ee aan oogada inteeda kale ka hadlayo ayaan ku dhaartay inaan markaan seexanayana dadka u duceeyaa markaan soo toosana dadka u duceeyaa salaada subaxa markaan tukanayo ilaa intaan hameenkii hurdo inta aan ka soo jeedo inaan intaasna ilaahay subxaana watacaala aan u tasbiixsado ayaan alla dadkaygana u baryaa Soomaaliyeed iyo dowladayda iyo wadankayga iyo ehelkayga iyo ilmahayga iyo ilmaha muslimiinta ah kulligoodba sababtay tahay haddii yoom ilaahayga aqbalo waxaan leeyahay ha kuu badato oo dadkoo dhan ilaahay ha u aqbalo adinkana waxaa laydinka rabaa Soomaaliyey inaad sidaas oo kale yeeshaan oo qofkii ducaynaya waaradka muslimiinta oo Soomaaliyeedna ka kow yihiin ehelka ciyaalka muslimiinta oo Soomaalidu ka kow tahay muxuu hayto inaad kulli u wada ducaysaan kulli inaad wada ducaysaan ilaahay inuu soo hanuuniyo ilaahay inuu wada xafido ilaahay inuu wada ammaaniyo ilaahay cadowgana nooga qabto midka sharka midka dunida midka masaa'ibta adduunka ilaahay inuu nooga qabto faatixada u soo mara hooyooyinka ooyaya oo ilmihii laga qaatay ilaahay subxaana watacaala cadowgaas ka haysta oo u xoog sheegtay ilaah baa ka xoog weyna allaha raxmaanka ah uga soo celiya caruurtooda annagana Soomaali oo dhan ilaahay caruurta inoo hagaajiyo inoo hanuuniyo salaada iyo soonkana allaha ku hanuuniyo ilaahayna ha inoo xafido sharka adduunka iyo sharka aakhirana allah inoo gees mariyo ilaahay idankiisa Soomaaliyey mar walba waxaad ogaataan adduunkan inuu masqaala daratin uu yahay adduunkan nin maal leh iyo nin aan maal lahayn ba inuu masqaala daratin yahay
inaad yoom milal ayaan maracad ka qaadanaysid ogow waxba kaa raacaynin ogow maal baan ku raacayn caruur baan ku raacayn ehel baan ku raacayn xoogaaga weyn baan ku raacayn qabiilkaaga buuran baan ku raacayn wax ku raacayaa ma leh camalkaaga iyo adiga unbaa isla tegaya camalkaaga haddaad dhib badan tahay haddaad shiddo badan tahay haddaad diradiro badan tahay haddaad colaad badan tahay haddaad masaa'ib badan tahay adiga unbay ku raacaysaa ogow cid kale oo aad wax ku yeelaysid ma leh cid kale oo aad ku dhibaysid ma leh wallaahi adiga unbay ku raacaysaa hebel baan dhibay hebel baan dhibay hebel baan yeelay intuba aday kaan la kugu tahay cid ku dabagelaysaa ma leh dhibaatadaada wax kaloo kula raacaya male adiga iyo ilaahay unbaa ka xisaabtamaya ogow haddaad dulum samaysid ood cid dulumtid haddii aad cid dulumtid dariska dulumtid ehelka dulumtid waaridka dulumtid adigu naftaada dulumtid ilmahaaga dulumtid reerkaaga dulumtid ogow adiga unbay kaan la kugu tahay oo yoomal qiyaamaha aan cidna ku saamaxayne ilaahay subxaana wa tacaala aad iridkiisa la istaagaysaa adiga iyo allaha qaadir raxmaana ayaa ka xisaabtamaya hooyo ahow aabba ahow waxaan idin leeyahay walaalayaal allah baa markhaati inoo noqon haya haddaan idhaahdo dadka ka qari oo iisaanka ka qari oo dadka hortiisa iska dhis iisaanka hortiisa iska dhis adduunkan wax ka qas ilaah baa kuu jeeda subxaana wa tacaala oon waxba ka qarsoonin allah waxba kama qarsoomaan ilaaha qaadira waxba kama qarsoomaan adiga unbay kaan la kugu tahay adiga unbaana dembigaaga badsaday oo buuxsaday oo waxa weeye meel walba dhigtay oo aakhire kaaga horeysa meeshaad khayr iyo wanaag raadinaysay wan anigu qof wanaagsan baan oo sharaf badan oo la yaqaano haddaad la taagan tahay ogow ilaaha subxaana wa tacaala waxba ma qariyo waxna ma qiyaamay adiga unbaa waxna qiyaamo waxna qariya ogow ilaaha subxaana wa tacaala aynu u noqono walaalayaal waxaad ogaataan in camalkaagu uu hadduu waxun kuu jiido ogow inaad wixii xun aakhire ugu tegay sida adoo wax kaloo aadan ogeyn aadan ugu tegaynin ogow waxaad aakhire ugu tegayso waad ogtahay adiga haddeer adduunka joogo waad ogtahay khayr iyo shar waxaad samaysay khayr iyo shar waxaad samaysay waad ogtahay ha u malayni inaadan ogeyn asxaabtii way isxisaabin jireen markay adduunka joogeen maanta maxaan samaynay oo khayra maxaan samaynay oo shara bay isdhihi jireen adiguna aadamow waad ogtahay dhibta aad adduunka u geysatay iyo khayrka aad geysatay labadaba waad la socotaaye haddaad waxun geysatay iyo haddaad khayr geysatayba haddeer alla u noqo waqtigu waa kuu furan yahay inta waqtigaaga aysan soo gaarin oon camalkaaga lasoo duuduubin haddeertaan ilaahay subxaana u noqo anigu hooyaanahay mas-uul baana waxaan mas-uul ka ah gurigayga iyo ilmahayga iyo reerkayga iyo odagaygaan mas-uul ka ah qof walbo aniga ila midana waa sidaas oday ha noqoto islaan ha noqoto qof walba waa mas-uul birina waa la weydiin wuxuu mas-uuliyadda ka ahaa birina waa la weydiin waxaad mas-uuliyadda ka ahayd haddaad daalim ahayd ilaaha subxaana wa tacaala ayaa kaa xisaabinaya haddaad qof muxsina ahaydna allaha subxaana wa tacaala baa ka abaalmarinaya cidna ha ka sugin inay ka abaalmariso cidna ha ka sugin inay ku faaniso oo ku tiraahdo kanaad ahayd oo keeraad ahayd taas waxa weeye waa qofka adduunka la yiraahdo waa lagu soo yiray orod iska tag haddii khayr iyo shar waxaad lahaydba adduunkii baa lagugu soo yiri oo lagugu yiri qof fiican baad ahayd qof muxuu ahaa maasha allah baad ahayd adduunkii baa in lagu yiraahdo aad rabto waana lagu soo yiri orod iska tag baa lagu leeyahay waxaan idin leeyahay walaalayaal qof walba ha u guntada naftiisa siduu la dagaalami lahaa naf kale ha la dagaalamina taada la dagaalam naf kale ha la dagaalamina taadu iyo aakhira qabriga muxuu hayto aysan cadaabkaaga hormarin la dagaalam walaalayaal ilaahay dambigeena iyo dambi waaridkeenba ha dhaafa ilaahay idankiisa allah noo naxariisto dhammaanteen meelaan joognaba adduunkan waa olo ina ku hayaaye aakhiradeena ilaahu uusan ka xumaynin walaalayaal aakhiradeena ilaahu uusan ka xumaynin isaga adaa raxmaan oo raxiim ilaahu noo dambi dhaafo nacafiyo nacaafimaada ilaahay idankiisa qalbiga allah inoo dejiyo adduunkan sharkiisa allah ina gees mariyo dambigeena iyo dambi waaridkeenba allah ha dhaafo waaridkeen intii dhimatay allah u naxariisto intii noolna caafimaad sareeca ilaahay ha siiyo ilaahay adduunkan ciqaabtiisa ilaahay ma ciqaabo
waaridkeen iyo walaalaheen iyo intii Soomaali Maxamed iyo intii Muslim oo ummad Maxamedaba walaalayaal adduunku waa shar meel socda sharkaasuna ninkuu jiito cadaab uu galiyaa awaawiga adduunka walaalayaal qof baa wuxuu arkaya qof xoolo haysta oo adduunyo haysta wuu ka xastayaa xaasidnimadaasna qofkii ma gaaraysa asagii unbay ku soo noqonaysaa ay ogaada qofkaas walaalkaayo wax haysta markaad aragtid ma sha Allah ilaahay ku siyaadiyo anigana Allah isiiyade adigana Allah ku siyaadiyo ku dheh hadhiin seebo ku hela xoolaha seebo qofkaan wax ku hela aniguna wax ku waaye seeba hebel wuxuu yeeshay aniguna ana wuxuu yeelan hadhiin walaalayaal adigu qabrigaaga ha buuxin adigu naftaada ha cuni waxa tiraada ilaahay asagana ha u baarakiyo Allah risqiis qofkaana Allah u baarakiyo anigana ilaahay risq khayr qaba haysiyo alxamdulillah ilaahayga asaga siiya anigaba way siin karaa alxamdulillah isagana Allah u baarakiyo anigana ilaahay wax khayr qaba haysiyo ilaahay adigu markaas wax khayr qaba ku siinaya ilaahay adigu risqaaga ku baarakinaya xoogaaga ku baarakinaya ilmahaaga ku baarakinaya naftaada ku baarakinaya laakiin hadaad xasadid qof walaalkaaga adigana ogow hada naftaadi baad xasaday xaasid ma bulaalo walaalayaal xaasid ma bulaalo qof shaqaha daartid war waxa tirada ilaahay ku yasiro war shaqadaanaad heshay mise shaqadaanaad haysaa ma sha Allah tabarakallah war ilaahay ku yasiro anigana mid khayr qaba Allah isii sidaas ka wanaagsan qofkan walaalkaaga xasadid caafimaadka ha ku xastin qof islaam warheedaheeda adigu qof weyn baatay waana caafimaad qabtaa oo waad caafimaad qabtaa war ilaahay adigana caafimaadkaaga ku siyaaday anigana walaalaha hadaan xanuunsana Allah ay caafiyo baa kafaysa mar walbaba xaasid qulubta ka noqon qoftan waa caafimaad qaba adigu ma caafimaad qabo qofkan waa dhalinyaro wali oo anigu waa yeeloobay hadhiin sababtay taa waxa way ilaaha subhana qaadir qofkan xariiru alla la leeyahay haduu jiro adiguna xariir alla la yeelo oo ilaahay subhana waxa tirada ma sha Allah tabarakallah ما شاء الله تبارك الله إلهي أدقنا هكو سيادي ولا لو أنقنا الله إسيو مرول بعضكو سيدا كددال ولا ليال قلبك إن أفر إيسانك أدنكنا إلهي بايدين فرهية قلبك هداد الله دادك أفرتد أدقنا الله كو فرهية ماشا كتولي سيد با الله كاتيرنا ولا ليال إلهي نبت قل يدي سان كبرنا إلهي عافمات بان كبرنا أنا وحانك أوه الله واسومالي وحانك الله واسومالي أفكالو كالكما الله إنجليز كما هالله عربي كما هالله وحكلا كما هالله أنا أفف كلام كما هالله وحن كهلا بس سومالي بانا هي سومالي وبانا كهلا الحمد لله وشكر لله سومالي بانا إجابة سومالي بقى إجابة يان دويد وحن ركي إجابة فلسطين أو سومالي دفعننا هي وحي وفعننا يا سومالي ودد قلبي وناكسن ما شاء الله تبارك الله قبلها مرول بوا كفر حي sababta waxa way codkeen inuu meel dheer gaaro waa fiican tahay oo qofkeena wanaagsan inuu meel dheer gaaro waan jeclay sababta taa waxa weeye dadkaas inuma soo qabtaan hadaan dad jira ayna ahayn ma sha Allah tabarakallah hadaysan dadka ay faaniyeen oo ay dhaheen ma sha Allah gabadha Sacuudiyiin waxaan arkaa anjeelada Soomaali gabdha laba gabdhood Soomaali anjeelada intay dubaanin ka hadlay ma sha Allah hadayna dad jira ahayn dadkaasina kama hadleen ما شاء الله تبارك الله سيدا إنه أدونك وقف فرحين إنا آخرنا وقف فرحنا ربنا وعندنا ورهبلو أدونك ما شاء الله قفي أنا إلهي قام بعض هيد إنا نسدهانو مركا إنه آخرة تقنا إنا دهنو ما شاء الله وقفوا وحد هيد ولالك يقول قفي عن بعض هيد ما شاء الله تبارك الله إلهي سبحانه وتعالى ميل في عن بينوصو أركا هل كانوا ينوصو أركا دذلك إن إلهي إنكم قدرين إلهي هو إنا كالمي إنا كالكال إنا دهنا ربنا آخرة نقف فرحنا سيدا أدونك وقف فرحين ولا ليا ما شاء الله تبارك الله ميلاد joogtaan ba ilaahay idin kalmeey allahna idin dhowro allah idin cafiyo dambigiina dambi wartkeen ba allah dhaafo kulligeen ilaahay idankiisa marka sida aynu isugu duceyno sida aynu wax isugu soo sheegno waa idin ka qaadanaya aniga uma khaalida adinkuna in adiga qaadataan oo qof walba qofka kala gaarsiisaan ayaan jecelahay qof walba qofka kale inuu gaarsiiyaan jecelahay walaalayaal sida anigu warkiina u dhageysto oo warkiina aan u sii gudbiyo ilmaha gurigayga jooga wallahi alcadiin marmar baa warkiinu markuu cajabiyo aan wada diraa u gareeyo u dira dhageysta hooyo qofkan wuxuu leeyahay wiilha noqoto gabar ha noqoto qofkan day sida wanaagsan u hadlaya day ciidamada markaan arko iyo waxa looga hadlayo waan u diraa ciyaalkayga gabaraan walaalanahay xamar joogta waan shala ciidamo u diray markaas waxay ku tiri subhanallah wali muwaadinadii baa tahay wali hadaad 30 sano wadanka ka maqan tahay
uma khaalid ay muwaadinaday baa tahay bay gutiri waxaan maxaan u jeclaan way wadankaygaan jeclahay wadanka islaam oo dhan baan jeclaa wixii khayr qabo la sheegaan jeclaa ma sha Allah tabaarakallah ilaahay ha dhowro ilaahay idankiisa meel walba aan joogno walaalayaal dhamaantiina waxaan idinkaga tagayaa cafi iyo caafimaad ilaahay nabadgelyo taamahayna yeelo risiq waasacana Allah ahayna siiyo hana inoo dambi dhaafo dhamaanteen meelan joognaba sidaan idin jeclahay inaan inagoo dheesu jeclaanaan rabbi lahaa meel kasta aan joogno ilaahay fadligiisa caafimaadka ina siiyeyna inaan u mahad celino alxamdulillah wa shukru lillah inaan mar walba dhahno sababtoo ta ilaahay ba caafimaadkan ina siiyay afkaan ku wada hadlayna ilaah baa ina siiyay gacantaana jawaalka ku hayana ilaah baa isiiyay mid anigu soo iibsaday ma ahan alxamdulillah wa shukru lillah ilaahayga caafimaadkan siiyay baan mahad uga celinayaa Soomaaliya oo dhan intooda badan caafimaadka siiyay inta naga xanuunsanay ilaaha qaadirahan u baryayna ilaahay inuu caafimaad sareeca siiyo dhimirka iyo dhuuxaba buuxiyo ilaahay inuu siiyo alxamdulillah wa shukru lillah wadankayaga waxaan u jeednaa inuu soo wanaagsanaaday inuu soo hagaagay inay madaxdii Soomaaliyeed heshiinayso mucaaradku inuu wadankiisa wax ka qabto inuu wadankiisa ay gacan ay ku wada qabtaan inuu wabiyadeena biyaha badda ku shubahayaan inay inoo sameeyaan kanaalo oo biyo xireen inoo sameeyaan sida dawladuhuba hadda u samaysanayaan alxamdulillah ilaahay xaqaha waafajiyaan la iyagana xaqa Allah waafajiyo ama siyaasi ahaadeen ama dawladda ha ahaadeen ama ciidamada ha ahaadeen ilaaha qaadir raxmaan aan u baryeynaa maalintaas rabadaanka aan soomanahay ilaahay xaqaha waafajiyo dadkeena ilaahay caafimaad ha siiyo nabadgelyo taama Allah siiyo ilaahay risqaha oo waasiyo caafimaadka Allah u siyaadiyo intii jirana Allah caafiyo ilaahay idankiisa dhamaanteen meelan joognaba ilaahay caruurta inoo xafido ilaahay xaqaha ku soo hanuuniyo intii maaragta caruurtu ka maaragta ka ilaahay subxaanahu wa ta'ala shaydaankaas dadka gaalada ay ka qaateen ilaahay ha uga soo celiyo isaga raxmaan gabdhaha halka ka ooyo oo caruurtooda yararka ahayd ay gaaladu ka qaadatayna ilaahay ha uga soo celiyo gaaladaas ilaahay ha uga soo celiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ka xafido sharka gaaladaas Allah ka xafido nabadgelyo taama ilaahay na siiyo dhamaanteen meelan joognaba aynu aamiinta isu gurno insha Allah adinkana warkiina aamiin baan leeyahay anakayga aamiin inoo dhaa ilaahay waa intaas qof lagu jiro ilaahay baa qof lagu jiro ilaahay baa qof lagu jiro ilaahay baa aniga hooyaday baa nool mar walba oo subaxdii waagu bariyo aan u diro telefoonna waa ii ducaysaa ilaahay waxay tiraahdaa waxaadan ku dhibtoon ilaahay albaabka ka soo galiyo khayra ilaahay adinkana wax badan oo hooyaday waxaan leeyahay ilaahay wax badan oo aysan cafi iyo caafimaad adduun iyo aakhiraba baan ilaahay iyadana uga bariyay adinkana hooyooyinkiin iyo walaalihiin uga baryay ilaahay inuu kulligeen isugu keen dambi dhaafo cafi iyo caafimaadna ina siiyo dhamaanteen meelan joognaba walaalayaal aynu isu soo ducayno inaga un baa isu nool haddaan adduunkan joogno haddaynu aakhira joogno inaga un baa isgaranayna aakhira haddaan tagnaan inaga un baa isgaranayna war qofkii hebelaha ma qofka halkaad ilaahay subxaanahu wa ta'ala muxuu hayto wanaagu ilaahay ka soo sameeyay waka halka kore la geeyay war qofkii hebelaha halkaas la geeyay baan isdhihi doonaa aakhira insha Allah bismillah ilaahay inoo dambi dhaafo dambigeed dambi waarkeen baa dhaafo walaalayaal qof walba wuxuu jecel yahayna on macsi ku jirin oo ilaahay wuxuu saraali ka ahayn aysan ku jirin Allah siiyo ilaahayna inagoo dhahayna siiyo waxuna alla raali ka ahayn ilaahayna ka xijaabo wixii alla raali ka yahayna Allah na siiyo ilaahay dambigeena dambi waarkeen baa dhaafo ilaahay idankiisa bismillah walaalayaal waxaan jeclahay inaa kulligeen caafimaad qabtaan inaa kulligeen wanaagsantiin inaa kulligeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu hal meel aakhiro baan ku wanaagsan oo jannada ilaahayna ku wada kulmiyo oo inu sida hadeer aan isula hadlayno inu hadhowna isula hadalno insha Allah bismillah inagoon dhimanayn inagoon waa yeeloobayn inagoon wajigoona duuduumayn inagoon timuhu ina ka cararayn rag haddaan nahay haddaan dumarnay anagoon waa yeelnimayna helaynin oo markaa shabaab wada qurux badan oo ilaahay subxaanahu intuu doortay noqda ayaan alla ka baryeynaa qof islaameed dhiig islaameed soo galin oo bari ka ah xaq islaameed bari ka ah dulum islaameed bari ka ah dhibaato aan geysanay bari ka ah oo sidii waaridkeena ku dhalay oo ilma xalaal dhalay inagoo sida aakhira ku tagna ayaan ilaahay ka baryayaa dhamaanteen maxaa ka wanaagsan qof aan ilaahay dambi ka soo galin qof aan alla dambi ka soo galin maxaa ka wanaagsan Allahu akbar ilaahay waxaan ka baryaynaa dambigeena ilaahay inuu dhaafo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu na cafiyo
إلهي وحن كبرينا عفية عافي ما دي نبتقلية تامة بان الله كبرينا ولا ليال انتي دنبابتو اسكو اغني دنبابتي إلهي بري سبحانه هاي إلهي نوغي دك عفيو انتي دي قشيي إلهي بري إلهي نوكا عفيو انتي الظلم قشيي إلهي بري إلهي نوكا عفيو الله باقا عنتي سوين إله با أقبلاه إله بانا أتشيبا ولا ليال دمانتين بوحان ديك قتقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.